sanad walba oo bilowda waxaan dejistaa qorshayaal badan, balse marka aan in yar wadaba isla bisha u horeysa ayay badiba qorshayaashaasi fashilmaan. Waa aan dhageystay oo akhristay muuqaallo iyo maqaallo badan oo dhiirigelin ah, sidoo kalena wax badan ayaan daawaday barnaamijyo ka hadlaya sida qorshe loo dejisto, balse waxaasoo dhammiba hal bacaad lagu lisay ayay noqdaan. Noloshayduna waa mid ay ku badan tahay hayaacdadu, waqtigayguna inta badan waxa uu ii dhaafaa si aanan dareensanayn. daawade, haddii aad tahay qof ay arrintaasi haysato, muuqaalkani waa kaagii ee ku soo dhawow. halkan kagama hadli doono sida qorshe loo dejisto, oo u malayn maayo inuu jiro qof aan meel ku qoran karin waxa uu rabo inuu qabsado. sidoo kale ma soo urursan doono ereyo badan oo dhiirigelin ah oo arrinkan la taxalluqa, balse waxa aan kula wadaagi doonaa tallaabooyin ay waayo aragnimo ku dheehan tahay oo kugu kaalmaynaya xal u helidda arrimahaas aynu hore u soo xusnay. waxaanan halkan kugula wadaagi doonaa 4 tallaabo oo haddii aad si dhaba u dhaqan geliso wax badan ka bedeli doonaa qaabkii hirgelinta qorshayaashaada aad u raadcayn jirtay. tallaabada koowaad, waxaad awooddo qorshayso. Rachel Winstein, oo ah aqoon-yahanad ku takhasustay dhinaca maskaxda, ayaa laga hayay hadal ahaa: mid ka mid ah dhibaatooyinkayna haysta waa inaan dejisano qorshayaal aad u waaweyn oo ay adag tahay inay inoo suurto gasho hirgelintoodu. taasna waxaa sababa ayay tidhi inuu qof walbaaba isku maleeyo ruux dadka kale ka duwan oo isbeddel mucjiso ah samayn kara. qodobkan macnihiisu ma aha inaad hankaaga yarayso, balse waa inaad qiimayso fursadaada, aqoontaada iyo dakhligaagaba, sidaasna aad ku go'aansato waxa ugu suurtagalsan uguna muhiimsan ee aad sanadkan gudihiisa qaban karto. tallaabada labaad, la wadaag qorshahaaga dad aad ku kalsoon tahay. waxaa laga yaabaa inaad marar badan maqashay dad badan oo ku taliya inay qorshayaasheennu inoo qarsoonaadaan ilaa inta aynu ka guulaysanayno, hadhowna dadku ay hal mar ina arkaan innagu oo heer gaadhnay oo aynu lama filaan uga dhigno guusheenna. balse daraasado badan oo la sameeyey ayaa arrintan ganafka ku dhuftay. Dr. John Michael waa khabiir dhinaca maskaxda ah oo ka tirsan jaamacadda Warwick, waxa uuna daraaseeyaa arrimaha sababa in ay dadku ku taagnaadaan qorshayaashooda. waxa uuna sheegayaa in sida ay u badan tahay aynu ku taagnaanayno qorshayaasheenna haddii aynu ka dhigno kuwo ay dadkana faa'iido ugu jirto, oo markaas dadka kale ay naga niyad jabayaan haddii aynu ku guulaysan weyno qorshaheenna. tanina waxa ay kuu noqon doontaa shidaal mar walba hore kuu sii riixa, balse marka aad qorshahaaga keligaa og tahay oo aanay cidina waxba kaa weydiinayn haddii aad ku guulaysato iyo haddii aad fashilantaba, markaas waxaa badan inaad qorshahaagaas faraha ka qaado. tallaabada saddexaad ee aanad la'aanteed waxba samayn karin waa inaad diyaarsato deegaankaaga. haddii saaxiibada, ehelkaaga ama dadka nolol maalmeedkaaga ku jira ay liddi ku yihiin qorshahaaga, marnaba meel ma gaadhi doontid. qorshahaaga waxa ugu muhiimsan waa waqtigaaga. qofka aan waqtigiisa qorshaynna waxa uu qorsheeya dadka ku xeeran iyo deegaankiisa. sidaa darteed waa inaad awood u leedahay inaad iska caabin karto qorshaha dadka iyo deegaankaagu kuu qorsheeyeen oo aad adigu qorshahaaga ku socon kartaa. tallaabada afraad, qurub oo yaryare yoolkaaga. qodobkan si aynu isula fahanno, kasoo qaad waxa aad rabtaa inaad sanadkan gudihiisa akhrido 100 buug oo faa'iido leh. akhrinta 100kaas buugi waa fikta sare ee yoolkaaga ee aad rabtay inaad gaadho. haddaba samee qorshayaal yaryar oo qabashadoodu fududahay. 100kaas buugna bilaha sanadka si siman ha ugu qaybin, ee tusaale ahaan bisha koowaad 3 buug oo keliya akhri, bil kasta oo ka dambaysana tirada sii kordhi. tani waxay kuu sahlaysaa inuu akhriskaagu caado noqdo oo aad noloshaada si fudud ugu soo darto. midna ogsoonow oo daawade, bini'aadan ayaynu nahay dhammaantiin, oo waan niyad jabaynaa oo caajisaynaa. mararka qaar gebi ahaanba waxaan faraha kala baxaynaa yoolkeennii, balse dawada iyo xalka la isku dhaafay waa joogtaynta. si kasta oo aad u caajisto ama aad u sagsaagto jadwal maalmeedkaaga, haddana marnaba ha joojin dejinta qorshayaal kuu gaara. dadka waxaa ugu liita kuwa isdhiibe inahaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkeenna maanta. hanaga ilaawan daawada inaad subscribe noo saarto channelka si aad noogula midho dhaliso annagana qorshahayaga.